عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkeenan oo ku saabsan cutubka saddexaad ee koorsada Logic and Critical Thinking. Cutubkan wuxuu ka hadlayaa Logic and Language, hangalka iyo luqadda ayuu ka hadlayaa. Cashirka koowaad haddaba waxaa weeyaan Philosophy of Language, falsafada luqadda, qaybta luqadda daraasaysa ee falsafada. What's philosophy of language? Philosophy of language is waxaa weeyaan the reasoned inquiry, su'aal iska weydiinta sababaysan. Su'aal iska weydiin into the origins of language, asalka luqadaha, nature of meaning, dabiicnimada macnaha oo macnuhu wax yahay, the usage and the cognition of language, isticmaalka iyo fahamka luqadaha, and sidoo kale the relationship xidhiidhka between u dhexeeya language, luqadda and reality, xaqiiqda. It's an important discipline in its own right. Waxaa la yidhi waa laan muhiim and hence sidaa daraaddeed it poses waxay soo jeedisaa ama keentaa question su'aalaha like what's meaning, waa maxay macnuhu, how does language refer to the real world, sidee bay luqaddu u tixraacdaa baa dunida dhabtaa, is language learning or innate or is it innate, luqadda miyaa la bartaa mise waa wax lagu soo dhasho, how does the meaning of a sentence emerge out of its part, sidee buu macnaha iska leedahay jumladii qaybaheeda uga soo dhex baxaa, and other related issues iyo arrimo kaloo la xidhiidha. Philosophy of language, however, should not be confused with linguistics. Philosophy of language-ka laakiin waa inaan lagu khaldin baa layidhi linguistics. Because linguistics is waxaa weeyaan the field of history, waa laanta that asks questions, waa laanta su'aalaha noocana keenta baa layidhi. What distinguishes one particular language from another? Maxaa luqad gaara ka sooca luqad kale? Laba luqadood maxaa lagu kala gartaa? Way ku kala duwan yihiin. What's that makes English English? Maxaa Englishka English ka dhigay? What's waa maxay the difference between Spanish and French? Waa maxay farqiga u dhexeeya Faransiiska iyo Isbaanishka? Qaybtan waxay ku saabsan tahay a brief note on the debates and the history of philosophy of language. Sharaxaad kooban oo ku saabsan doodaha iyo taariikhda ay iska leedahay philosophy of language. Qaybtan waxay ka hadlaysaa aragtiyaha kala duwan ay qabeen iyo sidoo kale waxyaabihii ay kusoo kordhiyeen filosofaradan halkan inooga muuqda. Sidoo kale qaybtan dambe waxaa kusoo qaadanayaa qeexda philosophy of language oo ah midii aan horey usoo aragnay. Hadlaysaa some philosophical approaches to the nature of meaning. Qayb ka mid ah aragtiyaha ku saabsan waxa uu yahay macnuhu. The question su'aasha ah what's meaning, waa maxay macnuhu, is not immediately obvious. Ma aha baa layidhi mid dhaqsaa u cad. Most frequently meaning inta ugu badanna macnuhu ama macnaha can be described as waxaa loo qeexi karaa the content, qaybaha ama waxa carried by the words ay xambaarsan yihiin ereyada oo signs ama astaamaha ama calaamadaha exchanged by people ay dadku isweydaarsanayaan when communicating through language markay luqadda ku wada xidhiidhayaan. Arguably there are two essential different types of linguistic meaning. Waxaa jira baa layidhi laba nooc oo ah macnaha luqadeed oo muhiim ah. Laba qayb ayaa jira oo muhiim ah oo macnaha luqadda ay leedahay. Waxay kala yihiin conceptual meaning iyo associative meaning. Conceptual meaning waxaa weeyaan waa macnaha fahan which refers to the definition of words. Waxaa la yidhahdaa waa midka tixraaca qeexda saxda ee ereyada words themselves, ereyada la fahantooda, and the features of those definitions. Iyo sidoo kale qaab dhismeedyada iyo muuqaalada waxyaabaha ay definitionadani keensanayaan ee laga fahmay. Macnaha labaadna waxaa weeyaan associative meaning which refers to asoo ka dhigan baa the individual mental understanding, fahanka maskaxeeda shakhsiga of the speaker ruuxa hadlaya, and which may be connotative, collocative, social, affective, reflective or thematic. Kuwaasoo laga yaaba baa layidhi inay noqdaan maxay waxyaabahan oo dhan way noqon karaan connotative iyo collocative, social, affective, reflective or thematic. Waxaa filaya xag dambe inuu ku sharxi doono. Waxaa jira several approaches to the philosophical nature of meaning. Waxaa jira baa aragtiyo fara badan oo kala duwan oo ku saabsan maxay macnaha wax uu yahay. Among others the following are the major ones. Waxaa ka mid ah baa kuwan soo socda iyo kuwa ugu waaweyn ah. Aragtidan koowaad ee ku saabsan macnaha ereyada waxay leedahay ama macnaha luqadda idea theories. Aragtiyahan waxaa la yidhahdaa these theories aragtiyahani claim that waxay sheegtaan meanings macnayaashu ama macnaha ereyadu are purely mental contents provoked by science. Waxaa weeyaan baa layidhi waa qaybo nadiif ah oo maskaxda wax maskaxda ka imanaya kuwaasoo sidoo kale ay sii xoojinayaan astaamo ayay leedahay. Qaybtan labaadna waxay leedahay aragtidan labaad truth conditional theories. These theories aragtiyahani hold meaning waxay arkaan baa layidhi inuu macnuhu yahay to be inuu yahay the conditions xaaladaha under which an expression may be true or false. Xaaladaha ay odhaahdu noqon karto run iyo been ayay ku xidhan tahay macnaha ereygu kolba wuxuu yahay. Aragtida saddexaadna waxay leedahay use theories. Aragtiyahan waxay leedahay these theories understand meaning
aragtiyahan waxay u fahamsan yihiin baa layidhi macnuhu inuu yahay to involve or be related to speech acts inuu la xidhiidha baa layidhi qaab hadalka and particular deterrence iyo sidoo kale odhaahyaha gaarka ah and the expression not the expression themselves kuma xidhno odhaahda lafteeda kolba waa qaabka loo dhahayo qaab kolba loo dhigayo macnuhu la socdaa bay leeyihin odhaahda lafteeda kuma xidhno ayay leedahay aragtiyahan afraad reference theorieska la yidhahdo sidoo kale semantic externalismna waa la yidhahdo these theories aragtiyahani view meaning macnaha waxay u arkaan to be equivalent inuu yahay mid u dhigma to those things shayaasha in the world ee adduunka yaalla that are actually connected to science kuwaasoo baa le astaamaha leh aragtida shanaad ama aragtiyaha shanaad ee verificationist theories these theories associate the meaning macnaha waxay la xidhiyaan baa le macnaha of a sentence ay iska leedahay jumlad with its methods of verification or falsification kolba qaababka loo xaqiijin kara ama loo beenin kara iyo kolba macnuhu ku xidhan yahay bale aragtiyahan lixaad ee la yidhaahdo pragmatist theories these theories aragtiyahani maintain that waxay joogtaan ama ay sheegayaan that meaning or understanding in macnaha ama fahanka of a sentence ay iska leedahay jumlada is determined by inay go-aamiyaan the consequences of its application cawaaqibta ama wax ka dhasha markii la adeegsado marka ereygan ama jumladan la adeegsado waxa ka dhasha ayaa kolba macnaheeda go-aaminaya bay leeyihin aragtiyahan logic and meaning macnaha iyo sidoo kale logic maangalka iyo macnaha the functions of language ciwaankan hadda wuxuu ka hadlayaa shaqooyinka ay luqaddu qabato labadan baa ugu muhiimsan oo arki doonaa cognitive iyo emotive meaning macnaha fahan ee uu iska leeyahay ereygu iyo sidoo kale macnaha dareen oo ereygu xambaarsan yahay ordinary language luqadda caadiga as most of us are at least vaguely aware sidaan inteena ugu badan baa la yidhi aynu qayb ahaan ka warqabno service various functions in our day-to-day lives shaqooyin fara badan ayuu noo qabtaa baa layidhi luqaddu ama inoo qabataa nolosheena maalinlaha the 20th century philosopher Ludwig Wittgenstein qarnigii labaatanaad muxuu ahaa philosopherkii joogay ee muxuu ahaa qarniga labaatanaad philosopherkii xilligaa noolaa ee ahaa muxuu ahaa Ludwig Wittgenstein la odhanayay thought the number of these functions to be virtually unlimited wuxuu haystay baa layidhi in shaqooyinka ay qabato muxuu ahaa luqaddu inay yihiin kuwo aan xad lahaynba this sidaa daraadeed among others languages used waxyaabaha luqadda shaqooyinka ay qabato waxaa ka mid a baa layidhi waxyaabahana loo adeegsada waxaa loo adeegsadaa su-aalaan ask question su-aal in la isku weydiiyo tell stories sheekooyinka lagu sheego tell lies been lagu sheego guess at answers jawaabahan ku qiyaasano form hypothesis mala awaalna ku sameyno launch verbal assaults inaan ku qaadno baa layidhi weerar afka tell jokes sidoo kale kaftankaan ku sheegno flirt with someone ruux su-aalaan oo kale kula hasaawno give directions jihooyinkaan ku bixino sing songs lagu heeso issue commands amarre inaan ku bixino greet someone and so on sidoo kale ruux inaan ku salaan waxyaabahaas oo dhan waa shaqooyinkan qabato luqaddu for our purpose laakiin ujeedadeena baa layidhi two linguistic functions are particularly important laba shaqood oo ay luqaddu qabato ayaa inaga hadda inaga muhiim inoo aan eegaynaa ta koowaad oo ah to convey information in ay luqaddu gudbiso muxuu ahaayey xog ama warbixin ama sidoo kale to express or evoke feelings in lagu sheego ama lagu soo jiito dareen consider for example the following statement tusaalahan waxaa la yidhi waxaad ku xisaabtantaa tusaalayaashan tusaalahan wuxuu leeyahy waa laba tusaale waa hal tusaale laakiin laba qaab loo dhigay koowaad wuxuu leeyahay death penalty ciqaabta dilku which is legal taasoo sharci ka ah in 36 states 36 gobol ama dowlad goboleed has been carried out ayaa waxaa laga furiyey most of inta ugu badan in Georgia statekan ama dowlad goboleedkan ama gobolkan Mareykanka ka tirsan Georgia la yidhahdo ayaa inta badan laga furiyey however laakiin since 1977 ilaa 1977 Texas holds the record for the greatest number of executions stateka ama gobol Texas ayaa rekoorka ugu badan ee dadka la dilay ayaa qaaday bali oo haysta oo dadka ugu badan lagu dilay tusaalahan labaadna u fiirso death penalty ciqaabta dilku is cruel and inhuman waa mid arxan darro ah oo bini'aadantinimada ka baxsan ama cruel and inhuman form of punishment waa nooc ciqaaba oo bini'aadantinimada ka baxsan oo arxan darro ah in which case helpless prisoners maxaabiis nasiib daran are dragged from their cells laga soo jiita baa layidhi qolalka ay degan yihiin cells qolalka yaryar ee maxaabiista degan yihiin baa loo isticmaala and summarily slaughtered
sidoo kale baa la yidhi iyagoo aan maxkamad la geynin la gowraco waxaana loo gowracayaa only to satiate the bloodlust of a vengeful public waxaa la yidhi si looga dhargo dhiigga shacab argos doona marka labadan tusaale midba waxbuu xambaarsan yahay mid cognitive meaning buu xambaarsan yahay midna emotive meaning tusaalaha waxaa la yidhi the statement is in example one odhaahyada ku jira tusaalaha koobaad is intended primarily ugu horreyn waxaa loola jeedaa to convey information in xoogin lagu gudbiyo while the statement is example two meesha odhaahyada tusaalaha labaad ku jiro is intended loola jeeda bali at least in part qayb ahaan u yaraan loola jeedo to express in lagu sheego or evoke feelings ama dareen in lagu soo bandhigo ama dareen lagu soo jiito these statements odhaahyadani accomplish their respective functions shaqooyinkooda ay kala leeyihin waxay u qabsadaan through the distinct kinds of terminology noocyada erey bixinta in which they are phrased ee ay isticmaalayaan noocyada erey bixinta ay isticmaalayaan ayay mid kasta shaqadeeda gaar ku qabsanaysa oo midna emotive terminology bay isticmaalaya midna muxuu ahaye waxay isticmaalaysaa midna waxay emotive terminology bay isticmaalay midna waxay isticmaalaysaa maxay waxay isticmaalaysaa cognitive terminology haddaba terminologies ama erey bixinta terminology that conveys erey bixinta baa la yidhi gudbinaysa information xog gudbinaysa is said to have ayaa la yidhahdaa waxay leedahay cognitive meaning macno fahan ereygan ama tibixdani haddii ay gudbinayso on keliya xog ama warbixin waxaa la yidhahdaa macno cognitive ay leedahay ana sidoo kale terminology erey bixinta ama ereyga ama tibixda that expresses taasoo lagu qeexa lagu sheego or evokes feelings ama qeexaysa ama sidoo kale evokes feeling dareen soo jiidanaysa is said to have waxaa la yidhahdaa waxay leedahay emotive meaning macno dareen bay wadataa sidaa daraaddeed tusaalaha koobaad in example walba ereyada tusaalahaan legal 36 most often Georgia record etc iyo waxyaabaha kale la mid ah waxay leeyihiin primarily a cognitive meaning macno fahan bay ereyadaas wataa while meesha in example tusaalaha labaad ereyada sida lahaan cruel xandaro inhuman bini'aadanimada ka baxsan tusaalahaan helpless nasiib daran dragged laga soo jeedo slaughtered la gowracay bloodlust dhiig daadin vengeful argoston ereyadaas macnahooda markaa u fiirsa waxay leeyihiin bali strong emotive meaning macno daran oo xoog badan of course oo u fiirsa kuwii hore macnaha ay lahaayeen waxaa weeyaan waa xoog bay gudbinayaan waa legal sharciga 36 ee gobolka Georgia waxaas waxaa weeyaan waxay gudbinayaan xog sabab darteed waxaa leeyahay emotive meaning cognitive meaning weli kuwan laakiin dareen bay xabaarsan yihiin erayadan oo dhan sabab darteed waxay leeyihiin maxay emotive meaning of course erey kasta oo keensanaya muxuu ahaa dareen ama dareen lagu sheegay la yiraahdo emotive meaning weli of course dabcan baa the letters these letter words erayadan dambe ee aragnay emotive meaning gale have cognitive meaning as well sidoo kale macna fahanna sidoo kale way leeyihiin cruel means waxay ka dhigan tahay tending to hurt others dad kale inaad dhibtaa la yiraahdo xandarada waa inaad dhibto inhuman means waxay ka dhigan tahay inappropriate for humans shay aan ku habboonayn bini'aadamka dhaqan ficil ama aan ku habboonayn in lagula dhaqmo ruux bini'aadam helpless macnaheedu ka dhigan tahay unfortunate nasiib daran and so on and so on iyo wixii hawe kale la mid ereyada kale iyaguna aan soo aragnay sidoo kale iyaguna waxay leeyihiin cognitive meaning way leeyihiin haddaba emotive terminologies and arguments emotive terminologieska aan soo aragnay oo doodaha ku jira oo dooda lafteeda waa lagu adeegsan karaa let us now consider emotive terminology as it occurs in arguments hadda aan ku xisatona baa layidhi emotive terminology ama erey bixinadan dareenka wataay marka sida ay ugu dhacaan ay doodaha loogu adeegsado in arguments doodaha emotive terminology erey bixinta ama ereyga macnaha dareen wataay accomplishes wuxuu qabtaa baa layidhi basically the same function shaqo la mid ah as emotive terminology in sentence sidii ereyadii macnaha dareenka watay ee statementska caadiga ku jiray it allows the arguer waxay u ogolaataa baa layidhi doodaha ereygan emotiveki wuxuu u ogolaadaa to make value claims inuu sameeyo baa layidhi maxay value claims inuu sameeyo sheegashooyin qiimo waxaa la yidhahdaa value claim waxaa la yidhahdaa waa sheegashada in waxani uu sax yahay ama khalad yahay fiican yahay xun yahay waxaas la yidhahdaa about oo ku saabsan the subject matter of the argument waxaa kolkaa laga dooday without providing evidence isagoon caddayn keenin ereyadan awoodooda ayuu isticmaalaya isagoon caddayn keenin buu value claim sheegan and gives the argument waxayna siiyaan baa layidhi dooda a kind of extreme moral quality waxay siiyaan baa layidhi awood waxay awood u muuqata inaan la iska caabin karin by which it tends taasoo ay u muuqata baa to crash potential counter arguments inay ku burburinayso doodaha kale ee kasoo horjeeda
before the reader or listener has a chance to think of them. Ka hor inta uuna ruux akhrisanaya dooda ama dhegeysanaya uuna fursad u helin inuu ka fikiro. oo erayadan emotive-ka laga yaabaa ruuxiina inay saameyn ku yeeshaan oo doodii ay extreme quality also sidoo kale tends to paralyze. Sidoo kale baa layidhi waxay fadhiid ka dhigtaa the logical thought processes of the readers or listeners. Sidoo kale muxuu ahaa aragtida fikirka maangaleed ee ruuxa akhrisanaya ama doodaya ayay sidoo kale baa layidhi ay ka dhigtaa muxuu ahaa mid aan shaqaynayn. So sidaa daraaddeed they are not able to see, sidaa darteed ma awood uma yeelanayaan baa layidhi inay arkaan illogical arguments, doodaha aan caqligalka ahayn in their true life. Sida caadiga ruux oo markaas saxda u arka hadda u muuqata uma arkayo. Si haddaba aad uga fogaato emotive terminology-gani dooda saameynta ku yeelanaya waa inaad garanayso ruuxani value climbka uu sameynayo kadibna aad qiimeyn karto dooda. Tusaale hadda baan eegno. We know that the rocks on the moon. Hadda buu leeyahay waxaan ognahay in dhagaxyada saaran dayaxa dushiisu are similar inay la mid yihiin to those in our backyard. Kuwa si yaallo kale buu leeyahay guriga dabadiisa meelaha beerta yar xaafadda ku dhex yaalla backyard. And sidoo kale the tadpoles can exist in a weightless environment. Xayawaanka tadpoleska leeyahay sidoo kale waxay jiri karaan deegaan aan culays lahayn weightless. And I know that waxaad ogaataa we have put the rest of the world dunida intii soo hadhayna in waxaan ka dhignay waan gelinayna oo waan kala nidaamay dunidii kala dambeyn baan u sameynay buu. Can we concentrate on the problems here at home? Hadda xooga ma saari karaa buu leeyahay dhibaatooyinka hadda ka jira waddanka. Like what makes dadka ka dhigay like what makes people hungry? See waxa dadka ka dhigay baa layidhi gaajo dadku la gaajisan yihiin. And why is unemployment so low? Iyo sababta ay shaqo la'aantu usii badanayso. Marka tusaale ahaan wuxuu leeyahay ninkan dood buu soo jeedinaya. Doodan haddaba conclusion-keedu isagoo isticmaalaya emotive terms. The conclusion of this argument waxaa layidhi gabagabada doodan is waxaa weeyaan that our government wuxuu ninkan soo jeedinaya in dowladdeenu should take money waa inay qaadaa buu leeyahay lacagta that has been spent taasoo lagu kharash gareynayo on the space program. Muxuu ahaayey barnaamijyada hawada sare oo dhagaxyadan dayaxa sare laga soo qaaday waxyaabaha lacagtii lagu bixinayay. Ana sidoo kale international police actions iyo muxuu ahaayey howlaha nabadeynta caalamka lacagihii lagu bixinayay buu leeyahay waa in la soo qaado oo aan redirect dibna loogu jiheeyo to solving domestic problems, dhibaatooyinka waddanka gudihiisa in lagu xaliyo. Tusaale ninkan wuxuu hoos u dhigayaa muxuu ahaayey hawada sare iyo sidoo kale nabadda caalamka waxyaabaha tusaale waddankiisa hadduu ka shaqeeyo ciidamo nabad ilaalin leeyahay oo waddamo kale oo lacag ku bixinayo nabad ilaalintooda. Sidoo kale hawada sare lacag waxaasoo dhan wuxuu leeyahay muhiim ah. Waxaa ka muhiimsan iyadoo waddan gudihiisa waxyaaba lagu bixiyo. Marka wuxuu isticmaalayaa emotive terms ayuu isticmaalayaa ninkan. Doodiis emotive terminologies ayaa ku jira. Deficiency of cognitive meaning. Vagueness and ambiguity. Xaggan waxaan ku arki doonaa deficiency of cognitive meanings. Macnaha fahan meelaha ku liito. Marka haddaba waxaa jira laba deficiency oo la kala yiraahdo vagueness iyo ambiguity. Two problems that affect our cognitive use of language. Laba dhibaato oo saameyn ku yeesha baa leeyahay isticmaalkeena fahan ee luqad. Waxaa weeyaan vagueness iyo ambiguity. Marka maxay yihiin vagueness iyo ambiguity maxay? A linguistic expression oraah luqadeed waxaa la yiraahdaa ama waxaa la decide to be vague. Waxaa la yiraahdaa waa vague ma caddo. There are hadday jiraan borderline cases xaalado in which it is impossible ayna suuragal ahayn to tell ay suuragal ahayn inaad sheegto bale if the expression applies or does not apply. Inay oraahdan ku habboon tahay inay kale oo loo adeegsan karo. Vague expressions often allow for a continuous range of interpretations. Oraahyada vague-ga caddayn badanaa waxay ogolaadaan baa leeyahay turjumaado fara badan. The meaning macnahoodu is hazy oo midaan caddayn, obscure mid madow ku jiro, ana imprecise oo aan sax ahayn oo meel gaar sax ku hayn. Tusaale ahaan erayada sida baa leeyahay love, happiness, peace, excessive, fresh, rich, poor, normal, conservative, polluted dhammaan erayadaas are vague. Macnahoodu ma caddo. We can rarely tell in yar uma sheegi karaa baa leeyahay with any precision saxnaan kasta haddaan eegno whether they apply to a given situation or not. In xaalad gaar ah loo adeegsan karin. Tusaale ahaan
How fresh does something have to be in order to be called fresh? Inteen leeg buu sheegani fresh noqon si loogu magacaabo si aan u dhahno shaygan waa fresh oo freshkii lafteedii baa kala duwan tusaale ahaan khudaar haddii la yidhahdo khudaartani waa fresh maxaa laga wadaa dee fresh waxyaabo badan baa loo adeegsan karaa tusaale ahaan marka waa wax hadda waa cusub tahay loo adeegsan karaa sidoo kale weli lama karin wax markuuna aan la karsanayna fresh waa la yidhahdo khudaartani weli ma qurmin iyadana waa loo adeegsan karaa marka midee baan u adeegsan karaa marka macnihii ma caddo ereyada noocaas oo kale ayaa la yidhahdaa waa vague. The other way in which cognitive meaning can be defective qaabka kale baa la yidhi macnaha fahan oo sidoo kale uu ku liidan karo waxa weeyaan ambiguity iyaduna maxay tahay an expression is said to be ambiguous oraahda waxaa la yidhahdaa waa ambiguous waa mid macnaheedu uu isku qasan yahay when it can be interpreted as having more than one clearly distinct meaning marka loo turjumi kara baa la yidhi inay leedahay in ka badan hal macno oo in a given context xaalad gaara marka la joogo inay intaa hal macno in ka badan yeelan karto tusaale ahaan erayada sida light proper critical stress mad inflate just bang sound and race can be used ambiguously si macnayaal kala duwan baa loo adeegsan karaa oo light tusaalaan iftiin uu noqdaa fudayd waxyaabahaas uu noqon karaa tusaale ahaan if we were to describe a Fanta as light berry haddaan ku qeexi lahayn tusaale ahaan Fanta sharaabkan la cabay Fantada la yidhaha inuu yahay ereyga light aan ku qeexay does this mean the Fanta is light in color Fantadu kalar ahaan bay light tahay oo khafiif tahay ma light in colors ma tamartaa ku yar or light in taste mise dhadhankeeda khafiif oo dhadhankii lagu yaqaanay dhadhan ka duwan bay leedahay marka macna intaasoo dhan waa loo turjuman karaa vagueness and ambiguity can also affect entire statements oraah dhanna sidoo kale vagueness iyo ambiguity saameyn bay ku yeelan karaan marka vagueness iyo ambiguity aad bay isugu dhow yihiin laakiin wax yar bay kala duwan aan arkaynaa the difference between ambiguity and vagueness farqiga u dhexeeya baa la yidhaha ambiguity iyo vagueness is waxaa weeyaan vague terminology oraahdan vague allows for a relative continuous range of interpretations waxay ogolaataa baa la yidhi continuous range of interpretations turjumaado fara badan oo wixii waxyaabo fara badan baa lagu turjumi karaa mid gaara kuma caddo whereas meesha ambiguous terminology allows oraahda ambiguouska ay noo ogolaata baa la yidhi for multiple discrete interpretations oraahyo fara badan oo laakiin xadidan waxyaabo macnayaal oo kala duwan oo mid kasta loo adeegsan karaa jiro taa laakiin midna kuma caddo in vague expression oraahda vague baa la yidhi there is a blur of meaning waxaa jira baa la yidhi macnihii baan caddayn whereas ambiguous expression there is waxaa jira a mix up of otherwise clear meanings macnihii cad baa laga in isku qasmo ta hore waxa macnuhu ma caddo tan laakiin macnihii baa isku qasan oo ereygan macnayaal fara badan baa loo adeegsan karaa kan laakiin mid gaar oo ku cad yahay ma jiro however there are waxaa jira many forms of expressions noocyo badan oo oraahya that are ambiguous in one context kuwaasoo ambiguous marka dhinac laga eego and vague in another xaalad dhinac kalena marka laga eegana vague noqon oo labadiiba noqonaya tusaale ahaan ereyga slow in one context dhinac markan ka fiirino could mean either mentally retarded or physically slow wuxuu noqon karaa baa ruux maskaxaan dib dhacsan ama physically si duleel slow ah socon ruux ayar socdo oo kale but laakiin when the word refers to physical slowness markaan eegno baa la yidhi dhanka physical slowness markaan ka eegno ereygu wuxuu noqon karaa vague oo waxaa la isweydiin karaa how is slow how is su-aashaas la weydiin karaa similar remarks apply to light fast and rich sidoo kale erayadan fast light iyo rich iyaguna sidoo kale dhinacna vague way ka noqon karaan sidoo kale dhinaca kalena waxay ka noqon karaan ambiguous forms of disputes in logic noocyada ama qaababka isku dhacyada ee logica dhexdiisa waa labo verbal iyo factual mid afka oo erey ku salaysan iyo mid xaqiiqa ku salaysan in order to understand these disputes better si aynu u fahanno baa la yidhi isku dhacyadan khilaafyadan si aan u fahanno we need to consider the following example tusaalayaashan soo socdaan ku xisaabtana tusaalaha koobaad tusaalan xulay kaasa ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi master Zanovich abuses her children gabadhan Zanovich la yidhaahdaa ciyaalkeeda ay ku xadgudubtaa and how do I know that seen ku ogaaday buuri I saw her waxaan arkay buuri spank one of her kids iyadoo garaacaysa mid ka mid a ciyaalkeeda the other day after the kid misbehaved maalin markuu ilmihii uu si khaldan u dhaqmay Jamaal ayaa u jawaabay wuxuu yidhi don't be silly suxun waxa uu yahay fiirin bud kids need discipline ciyaalku waxay u baahan yihiin anshax waxay u baahan yihiin in la tarbiyeeyo and by disciplining her children iyadoo ciyaalkeeda tarbiyeynaysa Mr. Zanovich is showing that she loves them
waxay muujinaysaa buu inuu ciyaalkeeda jeceshay. haddaba halkan tusaalahan markaan u fiirsano the problem surrounds dhibaatada doodani ama labadan ruux isdiidan yihiin ee khilaafkani wuxuu ku salaysan yahay the vagueness of the words abuse and discipline. waxaa la yidhi macnaha ereyada abuse iyo discipline oo vague oo aan caddayn. when does discipline become abuse? the line separating the two is hazy. waxaa la yidhi farqi labadan erey kala soocaya ama xadka kala soocaya labadan erey ayaa ah midaan caddayn. but unless it is clarified ilaa oo la kala caddeeyo waxa discipline laga wadayo abuse ilaa oo la kala caddeeyo disputes of this sort walaahiyada noocana will never be resolved lama xallin karo. haddaba isku dhac kasta oo ka yimaada vagueness-ka ama ambiguity-ga erey ku salaysan ayaa la yidhahdaa maxay verbal dispute. tusaalaha labaadna Mulu wuxuu yidhi I am afraid that Degem is guilty of cheating in the exam. waxaa la yidhi wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa in Degem ninka la yidhaahdo uu dembi galay maadaama imtixaankii qashay. last night xalay he confessed to me wuxuu ii qirtay uu ii sheegay that he was sat closer to Sadele inuu ag fadhiyay Sadele who is the most excellent student in our class kaasoo ardayga ugu fiican galaaskeena and takes almost all answers from her ama ardayda hadday gabar tahay sidoo kale uu ka qaatay dhammaan jawaabaha dhan iyadoo kasoo qaatay. warkuba hadda u jawaab wuxuu yidhi no maya you couldn't be more mistake ha qaldamay yaan lagu qaldin in this country waddankan no one is guilty ruuxna dembiile ma ah until proven so ilaa oo lagu caddeeyo in a court of law maxkamadda sharciga ilaa oo lagu soo caddeeyo ruuxna dembi ma. and Degem has not yet even been accused of anything. Degemna weli xitaa waxba lagumaba eedayninba. marka tusaalihii hore muxuu ahaa vagueness-ka laba erey ayay dooda ku salaysnay. kan aan fiirino in this example the dispute arises over the ambiguity of the word guilty. doodani baa la yidhaha ama isdiiditaankan isku dhacani wuxuu ka imanayaa muxuu ahaa ambiguity-ga ereyga guilty. ereyga guilty baa ambiguous oo laba macnayaal kala duwan yeelan kara. Mulu ninka la yidhaahdo is using wuxuu isticmaalayaa the word in the moral sense macnaha dhanka akhlaaqiga macnaha caadiga morality wixii saxaan iyo khalad ahaan xaggaas u adeegsanaya. given that Degem has admitted to cheating the exam maadaama baa la yidhi Degem uu qirtay inuu imtixaanka qashay it is very likely that he did indeed cheating in the exam. waxaa suuragala baa la yidhi inuu imtixaanka qashay and therefore is guilty of cheating waxaa la yidhi is guilty of cheating waxaa la yidhi waa dambiile maadaama qashay in the exam in the moral sense of the term macnaha dhanka moraalka tibixda markaan ka fiirino. warku laakiin oo dhan kale is using wuxuu isticmaalayaa the word ereyga in legal sense dhanka macnuhu ka eegaya oo guilty marka la yidhahdo xagga morality iyo xagga macnaha way kala sharciga way kala duwan tahay. oo xagga sharciga ruuxa ilaa oo lagu soo cadday dembiile ma ah because Degem has not been convicted in a court of law. Degemna weliba maxkamad lama soo joojin. he is not legal guilty of anything sharciyanna muxuu ahaayey dembiile ma ah. marka doodan dispute-ka si loo xalliyo waa in la caddeeyo maxay labadan mid kasta ereyga guilty waxa uu ka wado oo ereyga ambiguous mid moral sense buu isticmaalaya midna wuxuu isticmaalayaa maxay wuxuu isticmaalayaa legal sense dhanka sharciga ayuu ka fiirinaya. haddaba disputes doodaha ama isku dhacyada ama khilaafyada that rise over the meaning kuwaasoo ka soo baxa baa la yidhaha ama ku salaysan ka soo ifbaxa the meaning of ama ka yimaada the meaning of language macnaha ay luqaddu iska leedahay arcolin ayaa lagu magacaabaa verbal disputes doodo dhanka afka ama odhaha ku salaysan. doodan hadday ku salaysan tahay ambiguity-ga ama vagueness-ka erey ay sababtay waxaa la yidhaahdaa dooda noocaasa verbal dispute. some disputes doodaha qaarkood sidoo kale arise over a disagreement about facts waxay ka soo baxaan baa la yidhaha ka soo ifbaxaan khilaaf ka soo ifbaxaa iskhilaaf ku saabsan xaqiiqo ayaa la isku khilaafsan yahay and these are called kuwa noocan iyaga waxaa la yidhahdaa maxay factual disputes dood xaqiiqo ku salaysan baa. tusaalaan eegno tusaalaan Dababe wuxuu yidhi I know that Fisaha stole a computer from the old school house. waxaan ogahay buu yidhi Fisaha inuu ka xaday computer dugsigii gurigii hore ee dugsiga. Avarish told me that Avarish ayaa ii sheegtay that she saw Fisaha do it. Fisaha hoosaa samaynaya in aragtay bay ii sheegtay. Maru baa u jawaabay wuxuu yidhi that's ridiculous. taasi wuxuu waa wax lagu qoslo wax ka soo qaad lahayn.
Fisaha has never stolen anything in his life. Fisaha weligii waxa ma xadin noloshiisa. Average hates Fisahu. Average Fisahu way necab tahay and she is trying to pin the theft on him. Waxayna isku dayaysaa baa layidhi inay ku nabto ama ku riixdo muxuu ahaa xatooyada isaga. Only keliya to shield her criminal boyfriend. Saaxiibkeeda dambiilaha si ay gaashaan ugu samayso oo ay dambiga uga leexiso. Haddaba halkan the dispute doodani kuma salaysna ambiguity-ga eray ama vagueness-ka eray ee xaqiiqa ku salaysnay. Halkan the dispute centers dooda baa la yidhaha ama khilaafku wuxuu xudun u ah on the factual issues arrimaha xaqiiqada ee ah whether Abrash told the truth inuu Abrash run sheegayo ana sidoo kale whether Fisaha stole the computer. Abrash inuu run sheegayso iyo sidoo kale Fisaha inuu computer xaday ayay doodani ku salaysan tahay ee kuma salaysna ambiguity-ga eray. Marka doodaha noocan waxa la yidhahdaa maxay iyaga factual disputes ayaa loo yaqaanaa. The intention and the extension of terms. Haddaba macnaha erayadu waxay yeeshaan intention iyo extension bay yeeshaan. Haddaba term maxaa la yidhahdaa? A term is any word. Waxaa la yidhahdaa waa eray kasta or arrangement of words ama waa erayo kastoo la habeeyey that may serve kuwaasoo u adeegi kara the subject of a statement. Subjectiga odhaha iska leedahay. Terms consist of waxay ka kooban yihiin proper names, common names, iyo sidoo kale descriptive phrases ayay ka koobnaan karaan oo iyaga ka kooban wax qeexaya. Tusaale haddii lagu yiraahdo kale madaxweynihii ugu horreeyay ee waddankaas waa descriptive phrase. Words that are not terms. Haddaba eray iyo term iyo word way kala duwan yihiin. Eray termi kasta waa word laakiin word kasta termi ma noqonayo. Marka termidu eraygu suu term u noqdo waa inuu noqdo maxay subject of statement waa inuu noqon karo. Words haddaba erayada that are not terms aan tibix noqon karin kulul waxaa ka mid ah verbs. Falka ma noqon karo. Non-substantive adjectives. Adjectiveyada ama sifooyinka aan wax tilmaamayn iyaguna ma noqon karaan. Adverbs ma noqon karaan. Prepositions kana sidoo kale conjunctions and sidoo kale all non-syntactic arrangements of words. Sidoo kale erayo aan sidii loogu talagalay oo habaysnayn iyagana sidoo kale ma noqonayaan. Oo erayo grammatically aan si sax ah u habaysnayn iyaguna ma noqdaan subject of statement ma noqon kara saddex terms ma. The following words erayadan soo socda or phrases ama jumladahan yar gaaban are not terms ma. None can serve as the subject of statement. Mid ka mid ah oo loo adeegsan kara muxuu ahaa subject of statement ma jiro. Tusaalaan dictatorial, above and beyond, crave oo aad doonayo baa la yidhahdaa macnaheedu aad doonayo runs quickly, moreover, cabbages, into again the forest waa erayo la iska habeeyey. Tan waa maxay? Waa non-synthetic arrangements of words. Waa erayo la habeeyey oo aan muxuu ahayo habaysnayn wax qaab macnaheed oo macna keenaysa aan u habaysnayn. Marka erayada noocaas oo dhan ma noqdaan terms. At this point haddaba halkan markaan taaganahay it's important waxaa muhiim ah to distinguish inaad kala socdo the use of a word isticmaalka erayga inaad ka socdo from the mention of word sheegitaanka erayga marka la isticmaalayo marka erayga la sheego way kala duwan yihiin oo eray aan noqon jirin subject of statement aan noqon karaynin ayaa haddii la sheego oo la soo xigto noqon kara. Without this distinction valid adoon xadkan aan haysan any word can be imagined to serve as the subject of statement. Eray kasta waxaad qiyaasan kartaa baa la yidhi inuu yahay subject statement inuu noqon karo and therefore sidaa daraaddeed to count as a term markaana tibix ahaan baad u tirsan. The word wherever tusaalaan erayga wherever for example tusaalaan it's not a termi ma ah but laakiin wherever oo in quotes calaamadda xigashada ku jirta can serve as the subject of statement. Subject of statement ahaan baa loo adeegsan karaa such as sida haddii la yidhahdo kale wherever is an 8-letter word. Wherever waa eray 8 xaraf ka kooban. But in this statement oladan baa la yidhi it's not the word itself that's the subject. Ma aha baa la yidhi erayga wherever waxa subjectiga ah but rather the quoted word erayga la soo xigtay baa ah oo eraygu macnahaan iyo la fahantiisa oo maaha subject laakiin markii la soo xigtay uu subject yahay. The word is said to be mentioned eraygan waxaa la yidhahdaa waa la sheegay ama la soo xigtay not use ee lama isticmaal. Marka isticmaalka erayga iyo sheegitaanka erayga isticmaalka erayga waxaa subject of statement noqon karoon eray marka hore term noqon karo. Marka erayada terms noqon karin sadartana aan loo isticmaali karin subject of statement haddii la soo xigto waxay noqon karaan subject of statement. Words are usually considered to be symbols. Erayada inta badan waxaa loo adeegsadaa baa la yidhi inay yihiin waxaa inta badan loogu xisaabtamaa ama loo arkaa inay yihiin baa la astaamo and sidoo kale entities they symbolize.
sifooyinka waxyaabaha ay astaanta u yihiin are usual called meanings macna ayaa lagu magacaabay terms being made up of words and also symbols what meanings they symbolize are two kinds terms wuxuu baa leeyahay waxay ka samaysmaan erayo iyo sidoo kale calaamado laakiin meaningska ay calaamadinayaan are of two kinds waa laba nooc waa intentional iyo extensional waa ciwaankii koraan soo arkaynay intentional iyo extensional the intentional meaning which is otherwise known as intention or connotation macnaha intentionalka ay iska leedahay tibix ama erey iska leeyahay sidoo kalena loo yaqaan intention iyo connotation loo yaqaan consists of wuxuu ka kooban yahay the qualities tayooyinka or ama attributes astaamaha sifooyinka that the term connotes ee ay tibixdaas hoos imanaya and the extensional meaning sidoo kale lagu magacaabo extension iyo denotation loo yaqaan isaguna consists wuxuu ka kooban yahay the members of the class xubnaha muxuu ahaa classka ama qaybta that the term denotes ee ay tibixdaas hoos imanaya tusaale ahaan the intentional meaning of the termka macnaha intentional ee muxuu ahaa ereyga cat consists wuxuu ka kooban yahay the attributes sifooyinka ah being fari tusaale cat marka la yiraahdo attributes hoos imanayo oo dhan baa la yiraahdaa intentional meanings sifooyinka marka aad tilmaamaha aadanayso tusaale cat marka aad maqasho waxa hoos imanaya being fari inay tahay mid dhogor leh having four legs afar lugood of moving in a certain way qaab gaara u socota of emitting certain sounds oo leh oo maxaa sidoo kale cod gaara bixisa and so on iyo waxyaalaha kale la mid while the extensional meaning una consists of kooban yahay cats themselves bisadaha laftooda and all the cats in the universe iyo dhammaan bisadaha kownka ku nool oo dhan ileen extensional meaning waxaa la yidhi waa maxay waa tirada classeska memberska ee xubnaha qaybta hoos imanaya la yidhaha the term connotes the attributes and denotes the cats intention and extension are roughly equivalent waxaa la yidhi labadan erey intention iyo extension waxay u dhigmaan baa la yidhi ku macno dhow yihiin erayadan hadda xilligan caadi hadda casriga la adeegsaday kala sense iyo reference respectively soo kale oo intention ereyga sense isu macno dhow yihiin sidoo kale extension reference ayay isku macno dhow yihiin also it should be noted sidoo kale baa la yidhi waa inaan ogaano that logic uses terms connotation iyo denotation in logic connotation iyo denotation u isticmaalo differently si ka duwan from the way they are used in grammar sida grammarka luqadda caadiga looga adeegsado si ka duwan inuu isticmaalaan iyadana waa inaan ogaano sometimes mararka qaarkood the denotation of a term waxaa la yidhi denotationka ay iska leedahay tibix can change radically isbedeli karaa with the passage of time waqtiga socda ayuu isla bedeli karaa tusaale ahaan ereyada baa la yidhi current living dodo birds shimbiraha dodoga la yidhahda hadda nool ana sidoo kale current king of France boqorka hadda ee Faransiiska tusaale ahaan at one time xilli denoted actual existing entities jiri jiray ayaa hoos iman jiray ama waxyaabaha hoos iman jiray but laakiin today maanta all such entities have perished way dhamaaday oo dadka shimbiraha doodooda way dabar go'een sidoo kale Faransiisku hadda boqortooyo maaha boqorna male have perished way dhamaaday accordingly saa darteed no fiirinayna baa these terms no have what's called empty extension waxay leeyihiin baa empty extension sababta extension waxay memberska u iska leeyahay classkaas sababta classkan waa empty wax hadda shimbiro noocaas classkaas wax ka jooga ma jiro sidoo kale Faransiiska hadda wax boqor oo jira marka class markii la yiraahdo current king of France uu ku dhacay ma jiro sababta they are said to denote empty or null class waxa la yiraahdaa waxay tilmaamayaan class ama qayb ama dabaqad maran the class that has no members waa class aan members lahayn oo hadii la yiraahdo current living dodo birds shimbiraha hadda nool waxay ka dhigantay wax shimbirahaas ka noolna ina jirin the classkaasi memberskiisu waa waxba waa ever in fact that's the fact that some terms have empty extension waxaa la xaqiiqada in tibxaha qaarkood ay leeyihiin empty extension leads to us waxay noor kacaysaa to an important connection between extension and intention xiriir muhiim oo ka dhaxeeya intention iyo extension that intention determines extension kaasoo ah intentionku inuu go'aamiyo extensionka the intentional meaning of a term macnaha intentional meaning-ga iska leedahay tibix service as wuxuu adeegaa the criterion for deciding wuxuu u adeegaa baa shardi lagu go'aaminayo
waa the extension concept waxa uu extension ka kooban markaan sheegan sifooyinkiisa iyo attributes ka ogaano ayaan memberska xubin ka noqon karay hoos iman karana ogaan karaa the distinction between intention and extension kala socnaanta ama farqiga u dhexeeya baa la yidhi intention iyo extension may also may be further illustrated by waxaa sidoo kale si dheeri loogu sharxi karaa bale by comparing inagoo isbarbar dhigayna the way qaabka in which these concepts aragtiyahan ama tibxahan ama can be used loo isticmaali karo to give order to random sequences of terms inagoo habeynna baa la yidhi tibxo aan si random usugu xijisina these terms may be put in the order of increasing intention, increasing extension, decreasing intention, and decreasing extension. qaabka in loo habeeyo laga yaaba tusaale waan arkaynaa aqoon a series of terms waxaa la yidhi tax eraya ah ama tibxa ah oo in the order of increasing extension loo habeeyey baa la yidhi qaab intentionkooda uu sii badanayo when each term waxaa la yidhahdaa a series of terms tibxa la habeeyey ama tibxa taxani is in the order of increasing intention waxay u habaysan yihiin qaab intentionkoodu sii badanayo when marka each term tibix kastoo in the series taxa ku jirta except markii laga reebo ta koobaad the first connotes ay keensanaysa baa layidhi more attributes sifooyin ka badan than the one preceding midda ka horeysa the one preceding it midda iyada ka horeysa oo midda ay ka dambayso ayay attributes fara badan keensanay ay sifooyinkeedu sii badanayaan in other words si kale haddaan u dhahno each term tibix kastoo in the series ku jirtahay ta koobaad markii laga reebo is more specific than the one preceding waxaa la yidhi midda kasii horeysa ayay more specific ka khaas ka tahay oo ay ka wax gaara kasii tilmaamaysaa oo sheega marka attributesku sii bataan more specific buu sii noqonaa wixii kale kaga duwanaabaa sii badanay a term is specific waxaa la yidhi termigan waa specific waa gaar to the degree that it connotes more attributes heerka markaa baa la yidhi ay sifooyin fara badan wix markuu yeesho ayaa la yidhahdaa waa specific the order of decreasing intention intentionka hoos u dhacayana baa la yidhi waa isaguna waa the reverse of the increasing intention intentionka increasingka kasoo horjeedkiisa waa isdaba marsayn xaggan hoose examplekan ku arkayna sidoo kale waxaa la yidhi a series of terms tibxo la taxay is in the order of increasing intention waxay u habaysan yihiin baa la yidhahdaa extension increasing extension sii kordhaya when marka each term tibix kastoo in the series taxanaha ku jirta marka laga reebo ta koobaad baa denotes ay hoos yimaadaan a class having more members class le baa la yidhi xubno ka badan than the class denoted by the term preceding it classkii hoos imanayay tibixda iyada ka horeysa oo tibixay ka dambayso hadday classka hoos imanaya ay sii farabataan waxaa la yidhahdaa tibixahaasi waxay u habaysan yihiin increasing extension in other words si kale haddaan dhahno the class size gets larger when with each successive term size-ka ama xajmiga classku uu sii bataa tibix kasta ta ku xigto ka dambaysa uu sii badanaya the order of decreasing extension isaguna waxaa the reverse of that of increasing extension waa kasoo horjeedka increasing extension tusaalahaan aan eegna tusaalahan bale waxaa la increasing extension tusaalahaan animal xayawaan mammal xayawaanka naasliyada loo yaqaan feline xayawaan qayb ka simida naasliyada haddana tiger marka midba midka ka dambeeya mammalisku attributeskay leeyihiin oo dhan mammaliskuna way leeyihin saa darteed attributes sii fara badan bay sii yeelanaya feline marka la yidhahdana waa qayb uu sii attributeskooda sii badanaya tiger si kale haddaan fiirinaba midba midka ka dambeeyo more specific iyo animal tusaale waa general xayawaanka dhan mammalisku waa qayb specific felinekuna waa qayb sii gaara tigerna waa qayb sii gaara midba midka ka dambeeyo more specific increasing extensionkuna sidoo kale waxaa weeyaan waxaa sii badanaya marka dambeysa memberska classka tiger shabeel marka la yidhahdo dee memberska classku waa shabeellada bes feline laakiin marka la yidhahdo tigers xayawaano badan baa soo hosgelay mammal marka la yidhahdana xayawaano kasii fara badan intii felinka soo hosgelay baa soo hosgelay animal marka la yidhahdana classku sii weynaanaya marka intentionku waa maxay marka dambeysa attributesku way sii fara badanayaan uu iska leeyahay muxuu ahaaye shaygan iska leeyahay ama sifooyinka uu iska leeyahay ama si kale haddaan u dhigno termid midda ay ka dambaysa ayay ka specific ka gaar more specific ka tahay oo ay wax gaara sii tilmaamaysa intentionka laakiin marka la fiiriyo extensionka classka ama memberska class marka dambaysa sii badan oo tiger felinka ayaa ka sii fara badan oo wax fara badan sii manay xayawaan qayb baa la isku dhahaa mammaliskuna sidoo kale xayawaano badan baa sii hosgelay animal marka la yidhahdana dee xayawaan xitaa la isla yahay baa soo hosgelay decreasing intention
iyo sidoo kale decreasing extension oo labada ka soo horjeedkeeda oo increasing extension ka soo horjeedkiisu waa maxay waa decreasing intention saan isticmaalin xagga dambe laga soo qoray decreasing extension waa increasing extension ka soo horjeedkeeda hadaba waxa isku mid ah increasing extension iyo increasing intention iyo decreasing extension baa isku mid ah sidoo kale increasing extension iyo decreasing intention iyaguna waa isku mid there are hadaba waxaa jira some exceptions waxyaaba laga soo reebaya jira consider the following series tirooyinkan la taxay u fiirso baa unicorn waxaa la yidhahdaa waa xayawaan halgeesla waa xayawaan aan jirno inta badan iska malaawaala la dhahaa unicorn with blue eyes xayawaan halgeesla oo leh indha blue unicorn with blue eyes and a green horn waxaa la yidhi unicorn ama xayawaanka halgees kale oo indha blue leh bluega sidoo kale waa gees cagaara unicorn sidoo kale indha cagaara leh gees cagaara iyo sidoo kale culays ka badan 400 pound oo halbeeg markaan tan hadda u fiirsan each term tibix kasto in the series taxanaha ku jirta has empty extension keedu wuu maran yahay wax members oo soo kordhin ma jiro oo unicorn baa attributes ama sifooyinka loo sii badinay laakiin marka midba mid ka dambeysay wax term oo soo badan ma jiro sida soolaan tan oo kale markii la yiraahdo tiger markii la yiraahdo feline members ko sii badanay mammal animal sii badanay members tan laakiin extension kiisu waa empty so daraaddeed while the series exhibits the order of increasing intention inkastoo taxanuhu soo bandhigay baa qaab increasing intention oo attributes ku sifooyinka oo unicorn xayawaanka leh mid ka dambaysa sii badanaysa it does not exhibit the order of decreasing extension laakiin ilaa waxaan soo aragnay increasing extension iyo waxa isku mid ah decreasing extension iyadoo qaab increasing extension oo socoto marka dambaysa attributes ku ay sii badanayaan haddana ma soo bandhigayo baa la tusaalahan ama qoraalkan ma soo bandhigayo maxay extension hoos yaraanayo oo memberska classku waa wili unicorn weeyaan wax soo biirayo members fara badan oo ku soo biiraya ma jiro here is another slightly different example tusaale kale oo waxa ka hirdoon ma arkanayaa tusaale waxa la living human being binaadam nool living human being with a genetic code waxa la yidhi binaadam nool oo leh baa la yidhi code hidde-side living human being with a genetic code and a brain living human being with genetic code, a brain, and a height of less than 100 feet. You see, the joke here, 100 feet. So, in this series, none of the terms has empty intention. تبعها مد كم دي empty intention مال أو مد كذا ميزة attributes كذا وسيبها غنيان أو مد كذا ميزة more specific كذا but لكن each term تبع كستاي has exactly وحيل هذا the same extension is كمية أو members كسوس قال يا ولي وهو human being ما members ما سيبها غنيان أصل others سيدا يكون كلين أو كلام مد كله intention كذا وصل مد كهالكين ويان أو intention كذا extension كذا أنا كذا اسمه فتلي بس هذا رادد while the intention increases يسوي intention كور أي بالي with each successive term iyadoo tibix kastoo isku xigo oo saalan intentionku suu kordhaya mar midba mid ka dambaysa attributeskeedu waa sii badanayaan iyadoo intentionku kordhaya baa layidhi once again the extension does not decrease extensionku laakiin hoos ma dhacayo ilan increasing intention iyo decreasing extension baa isku mid ahaay